صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني دروس رمضانية وحلقة لبي التبنات. حلقات waxaan kaga hadli doonaa fadliga quraanka kariimka uu leeyahay. walaalayaal maadaama aynu ku jirno bisha barakeysan ramadaanka, quraankana ilaahay wuxuu soo dejiyay bisha barakeysan ramadaanka, ilaahay quraanka soo dejiyay si ilaahay qolkiisa uu ku leeyahay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. marka maadaama lagu jiro bishii quraanka uu soo degay, waxaan rabaa inaan isxusuusino bal taariikhda quraanka iyo soo degistiisa iyo fadliga qiraa'adiisa yaan xalaqadan iyo xalaqadinka soo aadanba ku eega doona hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo waafajiyo. quraanku wuxuu ka mid yahay mucjizadii ugu weyneed ee ilaahay uu siiyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku tilmaamay tilmaamooyin aad u fara badan oo aan qaar ka mid ah xalaqadeena ku xusi doono. tilmaamooyinka quraanka waxaa ka mid ah inuu yahay qur'aan carabiyun, qur'aan carabi ah inuu yahay. quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo dejiyay luqada carabiga ayuu ilaahay ku soo dejiyay afdal luqaat oo afsax luqaat ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyay quraanka. sida ilaahay hadalkiisa uu ku leeyahay inna anzalnaahu qur'aanan carabiyan la'allakum tattaquun. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka kariimka wuxuu ku soo dejiyay luqada carabiga ayuu ku soo dejiyay oo ah luqada bariga muxuu ahaa quraanka la soo dejinay ay dadka carabeed waxay ahaayeen luqada carabiga luqada ugu fasiixsan ee ugu fasaaxada badan yay ahayd luqada carabiga. luqadaas iyo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka kariimka ku soo dejiyay. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama luqada sharafta badan ilaahay uu dooray, haddana quraanka waxaa lagu soo dejiyay ashrafu rusuli, rususha ilaahay midka ugu sharafta badan leh ee nabi maxamed ah ayuu ilaahay ku soo dejiyay subxaanahu wa tacaala, iyadoo loo soo mariyay ashraful malaa'ika, malaa'igta ilaahay midka ugu sharafta badan malakul waxyi la raada jibriil ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo loo soo mariyo waxyiga u keeni jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale ilaahay wuxuu u dooray quraanka kariimka ah ashraf biqaa'i al-ard, dhulka ilaahay meesha ugu sharafta badan leh ee ah Makka iyo Madiina, xarameynka ayuu ilaahay u dooray subxaanahu wa tacaala in quraanka kariimka uu ku soo dego. sidoo kale ilaahay quraanka wuxuu soo dejiyay bilaha ilaahay subxaanahu wa tacaala bisha ugu fadliga badan leh ee bisha barakeysan inuu ku jirno ramadaanka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka soo dejiyay. waliba habeen la yiraahdo laylatul qadri muxuu ahaa 10ka dambe ku jira, habeenkaas qaaliga ayuu quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dejiyay. tilmaamta labaad ee quraanku uu leeyahay waxaa ka mid ah quraanka inuu yahay nuur. quraanku waa nuur, sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha nnaasu qad jaa'atkum burhaanun min rabbikum wa anzalnaa ilaykum nuuran mubiinan. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka kariimka ah ee sharafta badan ee ilaaska iftiinka ayuu ilaahay inoo soo dejiyay subxaanahu wa tacaala, kaasoo muxuu ahaa inaga saaray mugdiyada, iftiinkan inoo saaray dhulumaadka iyo waxaynu ku jirno waxaas ayuu quraanka inaga saaraya, wuxuu inagu hanuuninayaa wadada toosan. quraanka kariimka quraankaas ilaahay inoo soo dejiyay nuurka ah. sidoo kale quraanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay raxmad, naxariis inuu ilaahay ku tilmaamay. ilaahay wuxuu leeyahay wa innahu lahudan wa raxmatun lilmu'miniin. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka wuxuu ku tilmaamay inuu yahay raxmad iyo naxariis si gaar ah dadka mu'miniinta ah inuu yahay. tilmaamooyinka kale ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka uu ku tilmaamay waxaa ka mid quraanka inuu yahay ashifaa, quraanka inuu yahay dawo, wax la isku daweeyo inuu quraanka u yahay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa. quraanka marka wuxuu inoo yahay dawo ayuu inoo yahay, wax la isku daweeyo muxuu ahaa lagu daweeyo xanuunada muxuu ahaa ku dhaca
jirka bini aadanka ee muxuu ahaa ku dhaca iyo wax walba dawo u yahay iyo sidoo kale midka quluubta iyo laabta ku dhaco qaswatul quluub waxa soo idil quraanka intaba dawo u yahay marka wax la isku daweeyo quraanka sida darteed dadka inta badan waxa maqlaysaa quraanka ha lagu akhriyo dadka ayada way toosan yihiin maxaa yeelay quraanku waa wax la isku daweeyo waxa ugu fadliga badan ugu wanaagsan waa in dadka qof quraan lagu akhriyo wax ugu weyn hase yeeshee waxa jidhal arin oo aad u qaldan oo aan rabin aan baraarujiyo walaalayaal quraanka inuu dawo yahay shaki kuma jiro hase yeeshee waxa jira dadka qaar markuu xanuun uu la soo dirso ama dhibaato dhacdo ama uu xanuunsado waxa inta badan loola carraa isbitaalada markaas meel kasta markii lagu soo wareego oo la wareego meel kasta ugu dambeyntii dhakhtarku wuxuu leeyahay markuu wax uu ka qabanayo wuxuu yiraahdaa qofkan waxba kama qaban karnay orado gurigiina geesto quraan iska saarta marka quraanka in la yareesto oo la yiraahdo laga dhiga halka ugu dambeeyo in laga dhigo la yiraahdo qofkan waxba kama qaban karnay quraan iska saarta bal fiis hatta dhakhtarka laftiisa khibrad kasta cilmi kasta ilaahay uu baray hase yeeshee dawo kasta uu dhakhtarku u hayo waxa ka weyn quraanka kariimka dawadiisa ka weyn walaalayaal markaas dadku wuxuu leeyahay quraan iska saarta marka waxa muhiim ma aha macnaheeda inaan diidanahay dhakhtarka in dad la geesto iyo in la xal dabiibo ma diidana walaalayaal hase yeeshee waxa muhiim inuu noqdo marka koowaad quraanka la saar qofka waxa muhiim qofka in quraanka lagu akhriyo quraanka isaga marka quraanka qofku ku dawoowaya ama wadadii ayuu quraanka idin tusinaya quraanka muhiim marka la isku daweeyo walaalayaal soo kale quraanku wuxuu ku tilmaamay inuu yahay waano quraanka ilaahay wuxuu inuu yahay waano يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم إلهي wuxuu ku tilmaamay quraanka inuu yahay waano oo madan muxuu ahaa loogu tala galay in muxuu ahaa kuwan samaan ay kuwana qaataan wax la isku wacdiyo oo la isku akhriyo oo ma la isku waaneen waxa ugu weyn quraanka kariimka walaalayaal waa waano wuxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo kale quraanka uu ku tilmaamay inuu yahay baraka inuu yahay quraanka ilaahay ku tilmaamay inuu quraanku yahay quraan barakaysan inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون إلهي سبحانه وتعالى القرآن الكريم كحكوت المامة إنه يهي قرآن بركيسن إنه يهي ولا مركا تلمامها أيو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحكوت المامة ولا إن شاء الله تعالى حلقة سوء آدن أيان قيبها الدم بقرآن كفضل جيسي قراءة دي سكوفها فاهن دونا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته